النبي عليه الصلاة والسلام حديث بكيدي لبدا مسلم هدي سيف اسكله هور يمادان القاتل والمقتول في النار كان الدلائي وكواحد دلي لبدو من نار تقلايان مركاسي waxay yiraahdeen nabiyow waaba garanay qaatilka maqtuul kan miskiin kan la dilay sanaarta ku galay yani mark wuxuu ku galay kaana hariisan ala qatl akhihi wuxuu ku dadaalayay walaalkiis inuu dilo yani niyadiisa waxay ahayd alla ilaahay adiga dil markaas uu kala hormaray marka waxa waay waa niyad maxaa yeelay waxay ku dagaalamayaanba maba ilaahay dartiis maba ahaba ama asabiyo ku dagaalamayaan ama qabiil bay ku dagaalamayaan ama maal bay ku dagaalamayaan ama adduunyo ku dagaalamayaan yani qofka markuu ilaahay dartiis u dagaalamayo oo marka sida jihaadka kale yani maaragtay ilaahay dartiis ba qof ba u dagaalamaya qofna qaniimo inuu helo oo maal helo u dagaalama yani maaragtay qofka ilaahay dartiis iyo kalimatullahi hiya al-ulya kalimada ilaahay inay sarreyso qofka u dagaalamaya hadda qofkaas waxa waaye khayr iyo wanaag buu helaya ama qofka qaniimo iyo maal inuu helo hadda waxa waaye qofkaas waxa waaye waxba kama helo maxaa yeelay maalinta yawm al-qiyaama naarta waxa lagu shidaa ugu horeeyo waxa waaye qof cilmi bartay oo diin bartay oo qur'aan bartay markaas wuxuu leeyahay yaa rabbi قرآنك أذان دراد دابان وبرتي يعني علمك دراد دابان وفافناي كذبت بالليه بين بات شكت علمك وها أبرت اللي يقال إلا قوي هذا قف كان عالم الله علم بدنا قرآنك وها آخر نيسي إلا قوي هذا عالم وها كلو سجر نارت ودتك أقول ريا لو هرناي كم إذا قف صدق بنا أو صدق بحنجرة يعني ماركت markaasuu leeyahay yaa rabbi sadaqada adaan ku bixin jira kadabta ma ilaahay baa la khiyaani karaa yani ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur ilaahay isha wax khiyaanta oo isha wax yani waxa xaaraanta ka afiirisa iyo waxa laabta lagu qarinayo ilaahay subhanahu wa ta'ala lagama qarin karo yani ya'lamu sir ilaahay lagama qarin karo marka waxa la leeyahay lacagtaas waxa u bixin jirta in lagu yiraahdo alla deeqsi sana الله قف كان ديقس السنة محايا إلى نية كحرنت إنما الأعمال بالنيات صدقة إلهي درتي صبح ولذلك الصدقة السر تابع في عن وقفنا أين كل أجين يعني قف مسكينة أو دبان إنتاد إسقريسد أو يعني ماركت وحسيسد يعني ماركتي الإخلاص ككاس وكجرا يعني ماركت عبادة هذا إنها تقرستد يعني ماركتي آد بأفي عنتا أو أذيك إلهي ولذلك واحد جروح لي هذا خبيئة waxa ilaahay ku bari kartaa waxaad adiga iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala kali isloogtiin idna hatta salafka hore waxay sameyn jireen hameenkii hatta way dhuuman jireen xaaskooda oo hurda ayuu intuu firaashka ka soo baxo ayuu hameenkii u dhantu kan jiray yani mark qaar iyagoo sooman ayay dhihi jireen haye qadadeeda ii sameey yani mark oo hatta xaaskiisa uu ka qarin jiray maxaa yeelay ilaahay dartiis buu ula jeedaa yani mark إلهي درتيس يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يعني مرك يعني أنه إذن كمر ربنا أبا المرين إذن كمر ربنا أمان إذن كمر ربنا إلهي درتيس سبحانه وتعالى إذن قودننا وهكذا لو كم إذا دتك النار تلوش دايو قف جهاد لو ما لنا إنه كل أنت يعني مرك ومركز لا كذبت وحا بين بات شكتن يد هذا وي حميد وحا دقالك أقل جرت إلا قيراد ألا جيس السنة الله جيس السنة الله في عنا حديث كان بركة إنما الأعمال بالنيات وما أنت قادني يا صاري يا وري معناه واحد تاي علماء كتب ذو يا واي وحال يا بخاري يا مسلم باوري إمام بخاري وإمام أئمة إسلام ككم ذا وأحاديث النبي السوء أروري يعني مارك وحال يا هذا الصح كتاب بعد كتاب الله وصحيح البخاري كتابك إلهي أو قرآنك درجة أهان كتابك كحجة وصحيح البخاري يعني هدي اللي هذا حديث كان بخاري باوريه عد كذب هل كرتملي ما أنت واحد ركيسا قف حديث بخاري وريه قف كهالله يدها حديث كاس عقلي مجلايو حديث كاس إلى ما أكو قف كاس وقف يعني مارك جاهل وقف مفسد وقف رب إلا لدقا إلا اسكع لي يعني مارك وقف رب الدين المسلمين إنه كفن ده محايا لي كقرني انت علماء إسلام كأردن أئمة إسلام كأردن يعني ما وحي اسكر راعين يعني وحا الصح كتاب بعد كتاب الله وفي صحيح البخاري يعني مارك وصحيح البخاري إيوم مسلم واحد درجة آن كحيقة إمام مسلم إمام بدن با حديث تورس وينو إمان دونا أبو داود با كمذا
imaam tirmidi baa ka mida axmed baa ka mida yani maaragtay maalig baa ka mida yani maaragtay ibnu maaja ayaa ka mida waa sheegi doonaa insha allah axaadiista marka haddii la yidhaahdo imaam bukhaari iyo muslim baa isku raacay waxa waaye asaxu darajat axaadiis xadiisyada waxaa ugu sarreeya kan bukhaari iyo muslim isku raaceen waxaa ku xiga kan bukhaari u wariyey ka dhigis waxaa ku sii xiga kan muslim u wariyey saasaada walidaalika maanta haddaad aragtid dad axaadiista nabiga calayhi salaatu wasallam wax ka sheegaya qaar baa maanta waxay ku leeyihiin qur'aanka keliyan qaadanaynaa firqadaas waa firqo baadil ah waa firqo la rabo in ummadda looga digo waa firqo dhunsan iyaga quraaniyiin bay isku magacaabeen laakiin kadaabiin waay see loo tukanaya duurka inuu yahay 4 ragco yahay seema quraankii ku taala sida loo tukanayo sida maaragtay tafaasiishii sakada loo bixinayo sida loo xajinayo war wixii oo dhan xadiiska hal tuuro macnuu diinta hal tuuro way maaragtay xadiisku waxyi ma yahay oo nabiga loo waxyoodo calayhi salaatu nacam yani wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yani wax allaala waxa nabiga ku hadlo oo dhan yani waa waxyi yani maaragtay ilaahay baa u waxyooda subxaanahu wa tacaala nabiga yani maaragtay axaadiistiisoo dhanna culummadu waxa waaye way noo sheeg walidaalika dadkaas waxa waaye ummadda waa uga digi lahayn